بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كليب كان باندوني إن هذا دعوتان كدبنا إنه سلنا قاشنا إنه سلاجنا بل وحن إنه يهين وحل أي إسلام كوجلي هاي إنه الإسلام كوجلين هوين إذا وحافر إذا قاضي الصومالي كنت قانين رجع إياه هوين كيسكم يهرين جري meesha fadhin jiray bay fadhidaa khudbatu ziwaaj ayada akhrinaysa ninkan iyo muxuu ahaayey wadaadkan gabadha wakiilkeedii weeye. ninkan waa ninkii gabadha guursanaya weye. wadankuna waa urdun. bal sida ay wax u socdaan baan rabaa inaan isla egno kadibna bal inuu islaamku sidan ogol yahay in kale inayna ka wada naqaashna ayaan u baahanahay. ruux walbana calaa cilmin ha uga jawaabo bal siday la tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا نجمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. جعلك الله وإياها أزواج صالحين ورزقكم الذرية الصالحة. عم غسان طلع على عمرو احكي له: زوجتك موكلتي ابنتي لارا على مهر معجل 5,000 دينار أردني ومؤجل 5,000 دينار أردني وعلى كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عمرو طلع على عمك واحكي له: وأنا قبلت منك زواج موكلتك ابنتك لارا على المهر المسمى وعلى كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة من التوفيق. ألف مبروك عمي، بارك الله لكم، بارك عليكم وجمع بينكم في خير. akhwaani arrinku sidaas u dhacay waa arrinkii ugu horreeyey aan arko haweeney isku nikaaxinaysa nin iyo naag ama wiil iyo gabar isku nikaaxinaysa. waa markii ugu horreysay aan arko. marka waxoogaa shaki baa iga jira bal sida ay wax u waday. waxaad moodaa inay iyadu aysan nikaaxa ridaynin laakiinse ay u meerinaysay aabbaha gabadha dhalay oo ay lahayd waxaad tirahdaa sidaa dheh anigoo gabadha wakiil ka ah gabadhaydina ay tahay ayadana ay soo wakiilatay inaan gabadhayda ku nikaaxiyo inaan ku nikaaxiyo ninka hebel la yiraahdo magacaadana loora la yiraahdo ma aqbashay nikaaxeeda. sidaasoo kale inay waxaad moodaa ay ahayd commentator oo u dhexeeya labada ruux oo macnaha nikaaxa ridaya ayaad moodaa inay u dhexaysay. marka balnimayo waxaad ka qabtaan baan doonaya inaan wax ka ogaado. dadka calaa cilmigan u saaxiibkaana waxaan doonayaa inaan wax ka maqlo arrintan inay arrin bannaan tahay iyo inayna bannaanayn. وصلى الله على المصطفى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.